galabta dowladda Iran waxa ay fuusta aad u adag u riixday dalka Qatar. Tan waxa lagu tilmaamay marmarsiyo dagaalka laga baqayo maalinta Isniinta ah dowladda Qatar la rabo in lagu garaaco. Iran waxay tiri 3 pilot oo saldhigga al-Udayd duqeynayay oo dowladda Iran ay leedahay oo Iraaniyiin ahaa ayaa waxa gacanta u galeen dowladda Qatar waxana ay ku jiraan xabsiyadooda. hay'adda lanqayrta cas ayaa warqad loo qoray dowladda Qatarna warqad baa loo qoray waxa lagu yiri baylodyadaas adinka haya waa inaad soo wareejisaan isla markiiba sheekadu waxa ay abuurtay xasaasiyad diblomaasiyadeed iyo waliba xaalad runtii walaaceeda leh caawa Qatar ayaa fariin soo dirtay waxay leeyihiin annaga Iran daris wanaag baa naga dhaxay laakiin waxa ay doonayso waa daandaansi Dr. Majid Al-Ansari oo ah hafayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee Qatar war culus ayuu caawa sii daayay qaliishka mar kale ayaa loo bira tumanayaa waan eegi doonaa xiisadaasi adag ee taagan wasaaradda muqaabaraadka ee wadanka Iran waxa ay gacanta ku dhigtay diblomaasiyiin u dhashay wadanka Faransiiska waxay leeyihiin wadankeena ay basaasayeen maadaama ay basaasiin ahaayeen xasaanad ilaalin karaysa ma jira gacantaana lagu hayaa caawa Paris xaaladdu waa ku xun tahay madaxweyne Emmanuel Macron lama yaqaan sida uu arintan u wajahi karayo dowladda Iran waxay leedahay wax aan reebanayno ma jiraan wax kasta waxa nooga muhiimsan danaha qarankeena waan eegi doonaa xiisadaas kale ee cusub ee caawa taagan laba farood ayay sidoo kale Iran caawa taagtay waxay leeyihiin Israa'iil ama dagaal ay ogolaanaysa ama nabad ay qaadanaysa haddii weerarada iyo duqeynta lagu hayo Lebanon ay sii socdaan iyana waa la duqeynaya oo la baryamaayo 11 qof ayaa ku dhimatay maanta duqeyn ka dhacday koonfurta Lebanon tira inta ka badanna waa ay ku dhaawacmeen waxaan eegi doonaa warkaasi iyo waliba dhaqdhaqaaqaasi xoog gale ee soo baxaya iyana aadka u culus dalka Shiinaha sirdoonkooda warbay caawa sii daayeen waxay leeyihiin muddo kooban ayaa ka dhiman xilliga booqashada rasmiga loo qorseeyay madaxweyne Xi Jinping inuu ku tago magaalada Washington DC halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump laakiin dowladda Mareykanku diyaarba uma aha bay yiraahdeen in ay ka shaqeeyaan sida ay leeyihiin iyagu arinta la xiriirta ajandayaashii laga hadli lahaa sidaas darteed inagu ma hayno madaxweyne baaga muddo ah oo doonaya Trump inuu shaax iskala soo cabo sawirna lagu soo galo shaqada Shiineysku ay hayaan waa ka weyntahay aqalka cad iyo Donald Trump waa inay keenaan waxyaabaha Xi Jinping halkaas uu tagi lahaa waqtigiisana uu gali lahaa hadii kale yaan liisdaalin bay leeyihiin caawa haddaba arintan xiisad inta laga yaaburaysaa iyadoo waliba Mareykanku uu wajahayo xaalad aad u adag isbuucyo kale oo culus ayaa gobolka bariga dhexe iyo guud ahaan dunida ku soo socda ikhtiyaartay nala socotay waa 16 bisha Agasta sanadka 2026 faaqidaadeenii saddexaad ayaynu caawa ku kulmaynaa oo aan si gooniya ugu eegayno wararka ugu waaweyn ee ka taagan gobolka bariga dhexe haddaba markii aad eegto Iran tilaabooyinka kala duwan ee caawa qaaday marna ay fuustada u riixday wadanka Qatar marna sida muuqanaysa dowladda Faransiiska diblomaasiyiin la xiriirayay waa basaasiin wadankeena jaajuusayay maxay ka dhigan tahay ma abaabulka iyo koortag weerar ku soo socda mise dalkan Iran la yiraahdo isaga ayaa baanteenooyinkiisa iska taagan yihiin haddaba si aad aragtidaasi qayb uga noqoto barnaamijyadeena fadlan magacaadii meesha aad joogto ku bilow kadibna waxay kula muuqdaan qaybta hoose faallada inoogu soo qor aad u mahadsantihiin soo dhawaada Iran wajib malaha mararka qaar markaad fiiriso sida ay u dhaqmayso iyo waliba tilaabooyinka lagu xanuujinayo wadamadii awoodda istaawilayay ee reer galbeedka dowladda Faransiiska laba diblomaasi oo u dhashay ayaa jeelka wadanka Iran ku jira waliba lama qarino wax la leeyahay waa diblomaasiyiin laakiin waxay basaasayeen wadankeena arintan caawa aad ay warbaahinta uga hadlayaan dowladda Faransiiska ahana aflabadii ayay dhawaaqday oo waxay leeyihiin waa nimankan xitaa curfiga diblomaasiyadda miyaanay ilaalinayn laakiin waxay leeyihiin Iiraaniyiintu annaga haddii qarankeena la basaasayo wax naxariisa agteena ma yaalaan
diblomaasiyadda curfi iyo dhaqan iyo xeerar bay leedahay basaasnimadana weji kale ayay leedahay laakiin basaboor iska soo qaado xasaanada diblomaasiyadda immunity-ga ku ilaalinaya soo qaado laakiin macnaheedu ma noqonayso inaad naga gaban karto wasaarad dhan ayaan u leenahay inaan arrimahaasi ku ilaalino adduunka waxa uu leeyahay hay-ado dhinaca sirdoonka ka shaqeeya laakiin Iiraan wasiir dhan ayaaba ka shaqeynaya basaasida muqaabaraadka taxliilinta iyo koortaga waxyaabaha amniga qaranka qatarta ku ah oo daaha gadaashiisa lagu cayaaro wakaalada wararka Tasniim ayaa caawa sheekadan ka qortay oo ilaalada kacaanka ku dhow waxana ay leedahay wasaaradda sirdoonka iyo amniga Iiraan ayaa sheegtay in ay ogaatay laba diblomaasi oo Faransiis ah oo ku sugnaa kulan qarsoodi ah xilli ay ciidamada ammaanka baarayeen kiis ay ku tilmaameen faragelin shisheeye iyo shabakado ay sameeyeen baaliri kuwa dibadda jooga wasaaradda ayaa sheegtay in labada diblomaasi lagu qabtay goob kulan qarsoodi ah uu ka dhacay iyadoo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah halkaasi uga soo muuqdeen sida bayaanka lagu sheegay markii la xaqiijiyay baaliri aqoonsigooda waxa arinta loo gudbiyay wasaaradda amuraha dibadda Iiraan kadibna labada diblomaasi waxa iyadoo ay joogeen booliiska diblomaasiyadda lagu wareejiyay safaaradda Faransiiska ee Tehran Iiraan waxa ay Baaris ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaheeda gudaha waxana Faransiiska ay ugu baaqeen inuu joojiyo tallaabooyinka ay Tehran u aragto kuwa wax u dhimaya amniga qaranka wasaaradda amniga Iiraan ayaa sidoo kale sheegtay in baaritaano hordhaca lagu sameeyay dukumeentiyo laga helay goobo ay muujinayeen sida ay sheegeen qorshe ballaaran oo lagu dhisayo shabakad qarsoodi ah oo lagu soo xulaya baaliyada shakhsiyaad gudaha iyo dibadda isla markaana lagu kordhinayo saameynta shisheeye ee gudaha wadanka Iiraan maadaama wadankaasi looga adkaan waayay dagaaladii dibadda Tehran waxay intaasi ku dartay in qaar ka mid ah dukumeentiyada la qabtay ay saxiixa safiiradii hore ee Faransiiska u fadhiya Iiraan taasoo ay sheegtay in dowladda Faransiisku ay ku waajibinayso inay sharaxaad ka bixiso waxa ay ku tilmaameen qorshe faragelin gudaha wadanka Iiraan wasaaradda amniga Iiraan ayaa si adag uga digtay baaliyada diblomaasiyiinta shisheeye inay ku xadgudbaan sharciga qarankan iyagoo sheegay in haddii falalka noocan ah ay soo noqnoqdaan ay qaadi doonaan tallaabooyin ku habboon waxa wadankaasi lagu sameynayo ee xadgudubka cad ee aan geedka loogu soo gaban Iiraan waxay sidoo kale ku eedeysay dowladda Faransiiska inay adeegsanayso cunaqabatayn faragelin iyo shabakado saameyn leh iyadoo xustay in Faransiiska sanadkii 2014 uu meelmariyay sharci looga hortagayo faragelinta shisheeye wasaaradda ayaa ugu dambeyntii sheegtay in baaritaanka kiiskan oo wali socdo ayna soo bandhigi doonaan faahfaahin kale oo dheeraad ah tani waa foolxumo iyo wajigabax ay la kulmayso dowladda Faransiiska ee la xiriirta arinta wadankaasi Iiraan si gaar ah u taabanaysa dalka qadarna caawa waxa uu iska riixay eedayn culus oo dhinaca Iiraan uga timi kadib markii la sheegay 3 duuliye oo u dhashay wadankaasi Iiraan in xabsiyada iyo jeelasha wadanka Qatar ay ku jiraan kuwan ama pilotyadan ayaa ujeedadoodu ahayd in ay duqeeyaan fariisinka weyn ee Mareykanku uu ku leeyahay Qatar ee la yiraahdo Al-Udeyd halkaas oo kamid ahaa sida la tilmaamay saldhigyadii laga weeraray gudaha wadanka Iiraan 4 diyaaradood oo 4 duuliye ay wateen ayaa markii howlgalka ay fuliyeen soo laabtay baaliri laakiin afartoodii gantaalaha cadowga ayaa haleelay mid kamid ah pilotyadaasi waa dhintay meydkiisana Iiraan baa lagu aasay oo markii dambe gacanta loo galiyay halka 3 kale la aaminsan yahay dalka Qatar inay ku xiran yihiin laakiin Majid Al-Ansari oo ah fayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Qatar ayaa ku dhawaaqay arrimahaasi in ay yihiin daandaansi iyo waliba dowladda Qatar in la doonayo in wadankeeda lagu soo xadgudbo isla markaana aanay jirin dowlayaal gacanta uga jira dowladdaasi Doha wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Qatar ayaa si adag u beenisay wararka sheegaya in wadankaasi uu gacanta ku dhigay ama uu xabsiga ku hayo dowlayaal Iiraan u dhashay afayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Qatar Dr. Majid Al-Ansari ayaa sheegay in ciidamada iyo kooxaha gurmadka iyo samataxbiixyaasha Qatar ay si buuxda u guteen waajibaadkooda iyagoo raadinaya meydadka ama haraadiga dowlayaashii Iiraan ee diyaaradahooda la soo riday Al-Ansari waxa uu sheegay in Qatar ay xiriir la sameysay dhinaca Iiraan si
loo diyaariyo loona wareejiyo meydka mid ka mid a duuliyaasha kaas oo la helay iyadoo la raacaya baa la yidhi xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah ee bini'aadanimada dowladda qatar waxay sidoo kale xaqiijisay inay xiriir la samaysay duuliyaasha arrintan ay qusaysay kadib markii bishii maarso ay hawada qatar ku xadgudbeen afhayeenku waxa uu intaa ku daray in qatar bishii abril ay cansuuntay dhinaca iiraan una soo diraan baa la yidhi koox si ay goobjoog uga noqdaan faahfaahinta howlaha baarista iyo samata bixinta balse uu sheegay in iiraan aysan weli ka soo jawaabin casuumaadaasi qatar waxay intaa ku dartay in sheegashada ah in ay xirtay baa layidhi duuliyaal iiraani ah aysan waxba ka jirin iyagoo tilmaamay in doorkooda uu ahaa samata bixin baaritaan iyo isku duwidda arrimaha la xiriira meydadka duuliyaasha waddankaasi iiraan waa jawaab kulul oo dowladda iiraan ay caawa kula kulantay dhinaca boqortooyada qatar dhinaca kale dowladda jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayaa caawa laba farood u taagtay nidaamka israa'il ee uu hogaamiyo benyamin netanyahu kadibna waxaa la sheegay haddii ay aqbali waayaan fariinta waddanka iiraan inay la kulmi doonaan weeraro aad u xoogan tani waxay ka dhigan tahay in iiraan ay doonayso in la joojiyo weerarada lagu hayo koonfurta waddanka lubnaan iyadoo maanta halkaasi lagu dilay 11 qof oo rayid ah tiro intaa ka badanna lagu dhaawacay kadib markii diyaaradaha israa'iiliyiintu ay duqeeyeen goobo rayidku ay ku sugnaayeen afhayeen u hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha benyamin netanyahu ayaa sheegay in sargaal sare oo ka tirsanaa guutada sida kumaandooska u tababaran ee xisballah ee ridwaan la yidhaahdo ay halkaasi ku dileen saatee dhinaca xisbiga ilaa iyo hadda ma jiraan war ka soo baxay oo la xiriira sheegashadaasi dhinaca kale wararka la helaya waxay tilmaamayaan in askar israa'iili ah ay waxyeello ka soo gaartay weeraro maanta ka dhacay koonfurta waddankaasi lubnaan wasaaradda amuraha dibadda ee jamhuuriyadda islaamiga iiraan ayaa ku baaqday in si degdega loo joojiyo falalka gardarrada ah ee israa'iil ay ka wado koonfurta lubnaan iyadoo sidoo kale dalbatay baa layidhi ciidamada israa'iil inay ka baxaan dhulka lubnaan ay haystaan oo iminka ay ku joogaan baa layidhi si sharci darro ah wasaaradda ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la joojiyo weerarada israa'iil iyo in la ixtiraamo baa layidhi madax bannaanida iyo weliba dhulka waddankaasi lubnaan oo hadda si gardarro ah ciidamada israa'iiliyiintu ay ku joogaan haddii aan eego wararka ka baxsan gobolka bariga dhaxana dowladda shiinaha ayaa walaac weyn ka muujinaysa hanaanka dowladda maraykanku ay doonayso in ay ku wajahdo soo dhoweynta madaxweyne Xi Jinping ee la filayo dhowaan waddankaasi in uu gaaro qaybta agaasinka dalka shiinaha ee maamuuska madaxtooyada ayaa ku tilmaamay ilaa iyo hadda aqalka cad iyo Trump inaanay wax qorshe ahayn oo lagu kulmi karayo sidaas darteedna madaxweynaha shiinuhu uu ka muujinayo walaac siyaasadda dowladda maraykanka dowladda shiinaha ayaa walaac ka muujisay jahwareer iyo isku dawad la'aan ka dhex jirta maamulka madaxweyne Donald Trump xilli wax ka yar 6 toddobaad ay ka harsan yihiin booqasho la filayo in madaxweyne Xi Jinping uu ku tago magaalada Washington DC ee caasimadda waddanka Mareykanka sida uu qoray wargeyska South China Morning Post booqashada Xi ayaa noqon karta baa layidhi tii ugu horeysay ee madaxweyne Shiina ah uu booqasho rasmi ah ku tago Mareykanka tan iyo sanadkii 2015 si kastaba Beijing ayaa walaac ka muujinaysa in Washington iyo Shiinuhu aysan si cad weli uga heshiin natiijooyin la taaban kara oo la filayo kulanka labada hogaamiye jahwareer ka jira isdiyaarinta iyo weliba shirka ayaa walaac ku haya dowladda Shiinaha warbixintu waxay sheegtay in ilaa iyo hadda aysan jirin baa layidhi hay-ad ama mas-uul Maraykan ah oo si cad loo xil saaray isku dawidda booqashada Xi arrintan ayaa keentay in diyaarinta booqashada ay inta badan ku socoto habracyo caadi ah iyadoo aysan jirin hoggaan cad oo haya baa layidhi faylka dowladda Maraykanka oo dhinaca Shiinuhu ay kala macaamilaan xaaladan ayaa xasuusinaysa diyaarinta booqashadii Trump uu horey ugu tagay Beijing xilli wasaaradda maaliyadda Maraykanka iyo wakiilka ganacsiga ee Maraykanka ay door weyn ku lahaayeen diyaarinta shirka labada hogaamiye taas oo laga dhaxarka baa layidhi hanaanka Trump loo soo dhaweeyay oo aad u sareysay
sida laga soo xigtay ila xog ogaal ah dhibaatooyinka diyaarinta shirku kuma koobna arrimaha siyaasadda oo kaliya balse waxay sidoo kale taabanayaan arrimaha saadka hab maamuuska iyo qaabka loo soo bandhigo shirka warbaahinta iyo shacabka Mareykanka. Beijing ayaa si gaar ah uga walaacsan arrimahan maadaama shirku uu ka dhacayo dhulka Mareykanka taasoo siinaysa aqalka cad awood weyn oo ku saabsan kulanka hab maamuuska iyo fariimaha warbaahineed ee la xiriirta booqashada. Warbixintu waxay sheegtay in kooxaha ku dhow Trump ay ku kala aragti duwan yihiin sida loo wajahayo booqashada Xi. qaar ka mid ah la taliyaasha oo ay ka mid yihiin Stephen Miller iyo waliba qaar kale ayaa doonaya in Trump lagu muujiyo meel siyaasadeed oo ka sareysa Xi, halka dhinaca kale ay jiraan kuwa ku talinaya in Trump uu yareeyo xiisada uu muujinayo dabacsanaan dheeraada. Beijing oo aan filayn heshiis weyn ayaa hadda muuqanaysa. inkastoo labada dhinac ay shirkan u arkaan fursad lagu xallin karo xiriirka u dhaxeeya labada dhinacyadan ee dhaqaalaha ee ugu weyn dunida, Beijing ma filaysa baa la yiri in shirka uu soo saaro natiijooyin waaweyn. sida ay la xog ogaala ay sheegeen qodobka ugu weyn ee hadda la hadalhayo ayaa ah in Mareykanka uu hoos u dhigayo canshuuraha lagu soo rogayo badeecadaha Shiinaha, iyadoo qiimaha canshuur dhimista la filayo in lagu qiyaaso ku dhawaad $30 bilyan Mareykanka. Trump ayaa sheegay in 24 Sebtembar ay noqon karto baa la yiri taariikh ku habboon booqashada Xi. aqalka cad wasiirka amuraha dibadda ee Mareykanka ama xogayaha amuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa isna bishii hore sheegay in booqashada wali ay ku socotay jadwalkii loo qorsheeyay. xiisadda iyo dagaalka labada dhinac u dhaxeeya ayaa u muuqanaya in ay tahay mid sii xoogaysanaysa, inkastoo dadaalka hadda uu muujinayo hoos u dhac weyn oo labada dhinac ku kala dhex jira. haddaba khiyaarta ay nala socotay sidaad u jeedaan gobolka bariga dhexe markaan arrintan Shiinaha ka soo laabto aad buu u culus yahay. dowladda Mareykanka gacan saar la leh ayaa digniin la siiyay. dowladda Iiraanna waxay ka baqaysaa maalinta Isniinta ah inay la kulanto tallaabo military oo dowladda Mareykanka uu qaadi karayo sida ay ku dhawaaqay wargeyska Ra'yul Yawm oo arrintaasi ku qoray maqaal taxliiliya oo taabanaya mustaqbalka gobolkaasi. haddaba Iiraan ma diyaar garow ayay sii gashay. dowladaha ay suuragalka tahay in la garaacana ma marmarsiyo ayaa loo samaynayaa. maxaa laga rabaa Qatar? Israa'iilna ma isku filan tahay haddii Iiraan ay weerar ka qaado? digniintanna ma aqbali karaysaa? haddaba si aad arrimahaasi u fahanto iyo waliba sida ay wax kula muuqdaan, qaybta hoose ee faallada inoogu soo qor adigoo magacaada iyo meesha aad joogto ku bilaabaya. ha ilmaamin inaad muuqaalka like saarto, share garayso, sidoo kale YouTube kana subscribe saarto. haddii aad dhinaca Facebook nagala socotana muuqaalka like saar, aragtidaada qaybta hoose dhig, sidoo kalena page-ka follow soo dheh. aad baad u mahadsantihiin.